yarku waqtiga maqribka kale iska daawan karaan oo awrkiyo maaliba finiiro la dhalashadiisii kalba isagoo marxalad maraya ilaa 10 xabood laga sameyn karaa moogto yarku afarisna ku daawadaan iyo mahadana idna waxa qortay si sheekaysan ama sheeko oo kale sida loo sheegtaba ayn sheeko xariir iyadoo noloshii geela ka waramasay neef mas'uulin naga soo qaaday oo ka dhigtay neef noloshiisii ay la socotay oo la saaxiibi karay saadin sheekada marka taas oo kale la sameeyo ayaa wanaagsaneed iyo kulli mar labaadna buugan dib u soo baxaa fiican oo moogtahay si laga soo dhigo moogtahay buug sawiro moogtahay gacanta hadday noqoto kuwa dee run ahaan loo soo qaaday hadday noqotaba iyo kelmadaho moogtahay lasii yaraa lagu sii yarbadiyo aduu soo saaritaan dambana u baahnaanaya laakiin imika waxa weeyaan buug dhaxalgala oo saa imika uu yahay dhaxalka Djibouti iyo qoramuka kamida mootay waqti Djibouti ka soo baxay kamida hay mahadana buugeedii u horeysay yahay intaasna ku joogsameysay qorshaalkan loo wadataa insha Allah buugka kale soo baxaya aad iyo aad aan ugu mahad celinaya mahad markan inagoo ku sii soconaa mahaday buuga ugu horeyn waxaan markan ku weydiinayaa buuga sawirkiisa sare waxaan ka arkayaa sawir muujinaya dhowr waji oo dadka qaarkood ay isweydiin karaan amba maadaama aad carruurta ugu tala gashay ay carruurtu isweydiin karayso oo waxaan muxuu yahay halkan waxaan ka arkayaa geed sidoo kale halkan waji qof bil aadana ayaan ka arkaynaa halkan waxaan ka arkaynaa wax sida afka oo kale ah amba meel hoga oo kale wasaan u arkayo geedkii iyo xididadiisina waan arkaynaa maxaad uga jeedaa markaas sawirkaas iyadoo geelina ku dul sawiran nirig baa ku dul sawiran waxa ay turjumaysaa noloshii miyiga waa geedkii waa geedka kulleen garta geed baa lagu hoos gooyaa waa qofkii bilaaadankii halkani carruurtu qaarkood inay uga cabsoodaan oo waxay waa ceelkii oo waa biyihii halkana waa nirig yara marka waxa ay turjumaysaa noloshii miyiga anigu waxaan sitay nirig ayaan rabay bilowgii inaan ku dul sawiro maadaama xabad ka waramayo sawir sameeyaha waan u mahadnaqayaa qaliil masri oo buuga inta badan ii sawiray ayaa nirigii yaraa intuu ii sawiray nirigeygii iigu daayay ayuu dabadeetana geed ii duldhigay sawirkaas ayaa ii sameeyey ceelkaas ii duldhigay inkastoo artiiskuba yahay hal abuur laftiisu kana mid yahay hal abuurka qalinka warun markaas isaga ayaa ii sameeyey aniguna markaas sidaa u arkay iyaantiyan u dooranayay bogan qaybtan waxaan ku yiri aad ayaan kugu mahadnaqayaa imaka unbaad iyo dhigtay baan ku yiri maadaama kaga waramayna noloshii miyiga waa tan noloshii miyiga isaga ayaa ii sameeyey waan ugu mahadnaqayaa baashka ugu horeeya ee buuga waa dhalashadii xabad mahaday waxaan arkaynaa sawir xabad oo dhalanaya amba hashi oo dhalaysa Soomaaliduna maaha bay tiraahdaa cimrigaaga oo raagay geel dhalayana oo ku tasaa wali ma aragtay geel dhalay waaqay sawirkan horta buugayga sawiradiisa waxay turjumayaan runtii waa cashir iyaguba hasha marka laga dhalanayo lama daba joogsada waa la hareer joogsadaa markaas de waad iska garanoo niriga yarada intuu leeyahay ilmo 2 kiilooya ma aha marka inta la daba joogsado ayaa marka uu la soo baxo madaxa iyo mijaha hore ayaa sidaas loo soo bixiyo sidan looma soo bixiyo marka waxaan ku sheegayaa sawir walba oo ka aragtid buugan dhexdiisa waxa uu sheegayaa sidii qayalmo ay u jirtay sheekadu ayaa ku turjumayaa neefka geela marka uu dhasho oday waan u mahadnaqayaa maqan inuu daawan doono barnaamijkan oday runtii xikmad madaxiisu runtii xikmad lahaa ayaa ii waramay oo xataa qiyaastii ii sameeyey nasiib wanaag anigu maan joogin nirig dhalanaya ama hal dhalaysa uma joogin waxa uu ku qiyaasay markaa neefka geelu uu dhasho 35 kiilo ayaa ku dhashaa
12 biloodna caloosha hooyadii ayaa ku jira waqtigaasna nirig ayaa uu sitaa waayo markasta uu marxalad marayo nirig awrku waxa uu leeyahay magac markan nirig ayaa la yiraahdaa marka uu 7 bilood u gaaro ilweyn ayaa la yiraahdaa marka uu 3 bilood gaaro qaalin ayuu noqdaa sidaas ayaa u soo soconaya kursiintiisu mahada buugani sidoo doctor Namcaan noo sheegay inkastoo ku qoran yahay luqadda Faransiiska haddana ereyada la yiraahdo amba loo adeegsado waxaad ku qortay af Soomaali iyo af Afari si aad labadiiba ugu gudbisid carruurta reer Djibouti markaas hawshaasi sidee aad u qabatay miyana dhibaatooyinka hor iman maadaama di af Soomaaligii iyo af Afarigii iyo luqadii Faransiiska saddex luqadood hadii aan ku raado buug waliba oo buugay kamid ah sheeko gaar ah yeelay